kuuriyada waqooyi ayaa gantay gantaal kale oo nooca balastiga ah saacado kadib markii xogayaha arrimaha dibadda Rex Tillerson uu ku baaqay in si adag loo wajaho xukuumadda Kim Jong Un. Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in tijaabada gantaalkaasi ay Kuuriyada waqooyi ku guuldareysatay. Madaxweyne Trump ayaa isna ka hadlay gantaalkaasi ay tijaabisay Kuuriyada waqooyi, waxaana uu sheegay in ay taasi ixtiraam darro ku tahay wadamada gobolka, gaar ahaan dalka Shiinaha. Tillerson oo ka hadlayay xarunta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digay cawaaqib xumo ka dhalan karta haddii caalamku uu tallaabo adag ka qaadi waayo Kuuriyada waqooyi. Balse dalalka Shiinaha iyo Ruushka ayaa ka soo horjeesaday in tallaabo military loo adeegsado xukuumadda Pyongyang, waxaana ay ku baaqeen in wada hadallo arrintaasi lagu dhameeyo. Arrintan ayaa ku soo aadaysa maalmo kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mar kale ka digay in uu bilaami karo dagaal weyn oo lala geli Kuuriyada waqooyi, kaasi oo salka ku haya hubka nuclear-ka. Trump oo la hadlayay wakaalada wararka ee Reuters ayaa sheegay in uu door bidayo in arrintaasi ay noqoto mid lagu xalliyo qaab diblomaasiyadeed, balse ay adag tahay in lagu guuleysto.